faa'iidooyin aad u badan hadday tahay caafimaad hadday tahay dhaqaale maanta darajada maraya waa bronze lion faa'iidooyinka lagu helo maanta dalkeena lagama heli karo shirkadan waxaan ku helay 2 sano gudaheeda lacag dhan $30,000 in ka badan baan ka shaqaystay shirkadan abaalmarin aan ka helay shirkadan darajada 7aad markaan galay shirkadda waxay siisay gaari qiimihiisu $15,000 baan ku guuleystay darajada 8aad markaan galay waxaan ku guuleystay gaari qiimihiisu $10,000 haddana still waxaan fighting ugu jiraa inaan helo abaalmarin aad u badan oo maan joogsan wali waan sii wadaa waxaan maray bronze lion waxaan ku jiraa global share shirkadan global share baan ka helay maanta ma jirto Soomaaliya faa'iidooyin inta leeg maanta meel kale laga heli karo anu dadkan opportunity u abuuray waa in ka badan 4,000 oo qof waan anigu dadkan opportunity u abuuray ay 4,000 oo qof maanta meel ay ka heli karaan chance-kaas ma jirto maanta dadka anigu maanta shaqaysta aan anigu oran karo dadkan keenay way sii keeneen anigu shirkadda waxaan ku soo daray dad ka yar 4 qof 4tii qof qaar kamid ah waxay qaateen baabuur 4tii qof aan keenay qaar kamid ah iyaguna waxay gula guuleysteen baabuur waxayna sii sababeen inay 4,000 oo qof oo reer Muqdisho maanta ay ka helaan chance oo naftooda iyaguna ku shaqaystaan ay qultal darro ka helaan ay naftooda ku kafeeyaan oo maanta aaminaan dalkooda inay wax ku qabsadaan real waxa oran karaa fursad aad u qaaliya oo fursad Ilaahay loogu mahad celiyo fursadaas real anigu chance-kaas maanaysta still waxaan ku rajaynayaa insha Allah hadii Allah inaan sii wado shaqadayda hadii Allah ugu dambeyntii iminka darajada aad gaadhay ee darajooyinka shirkadda tennis ay ku gaadhay ma darajooyinka ugu sareeya mise waxa jira darajooyin kale ka sareeya oo hadda la dagaalameysa thank you very much Abdushakur darajooyinka shirkaddu waxay leedahay starting and ended waxay leedahay shaqo meel laga bilaabo lana gaaro meel ended ay ku dhamaanayso anu hadda waxaan maray darajada bronze waxa ka sii sareysay darajooyin aad u badan still hankayga mu istaagin still waxaan wada shaqadii iyo hawl baan wada ilaa aan istaagayo meel shirkadu ay noocayntay oo tiraalka hadda istaagtaan yani awoodii shaqadii badneed qabanaysay way joogsatay laakiin waxaan oran karaa ilaa hadda waxaan sii wadaa shaqadii badneed iyo dadaalkii badan baan ilaa hadda sii wadaa thank you very much okay Ahmed waxa kamid tahay dabcan xubnaha shirkadda tennis ee caalamiga ah caafimaadkii hantida bixisa shirkaddan xilliga soo bistay wallahi aniga horta magacayga saddexna maxamed cabdi baraan ku macdheeray shirkaddani waxaan ku soo biiray muddo laga joogo haatan 2 sano aniga waxaan ka imaaday degmada Baraawe markaan Muqdisho imaanay Muqdisho waxaan u imaaday aniga inaan jaanis aan u helo inaan dalka ka baxo oo aan wadamadan kale oo maciinbado si aan noloshaydii u badbaadiyo laakiin markaan meeshaan imaaday alxamdulillah waxaan la koobsaday shirkaddan tennis oo ah xilligii markaa ay wadanka imaanaysay ama Muqdisho imaanaysay ayaan la koobsaday kadibna aniga waa member baa ka noqday shirkaddii oo waan ku biiray markaan ku biiray kadibna kulli aabahay baan sokor aad lahaa qabay aad macaanka lahaa sokortu lahaa markaan aabahay ka daawayay kadib waxa sii go'aansaday inaan shirkaddii ka sii shaqeeyo xumin aan ka noqday maxamed baraawe shirkadda hadda halkee ka gaarsantaa darajada ka gaartay aniga darajadeedu waa darajada 8aad ee distar inta shirkadda ku gudu jiray waxaan ka helay intaan ka shaqeynaa shirkadda dhaqaalaha aan ka abuuray waa 25,000 ilaa 28,000 dhaqaalaha way marka Muqdisho imaanay waxaan ahaday qof ehel ku tiirsan amba reer abtibaal noolaa still tahriib nasi rabo laakiin maanta shirkaddaani markaan ku biiray wax badan baan sameystay oo waa shirkaddan ka guursaday markaan ku soo biiray shirkaddu wax maanaysan laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay qof reer leh oo shirkaddaani ka guursaday sidoo kale gaari ka wato waayo muuliga kuma aanan riyoon inaan Muqdisho gaari kula socdo anigoo aan shaqo nooca aan qaban laakiin hore gaari aan lahaan jiray waan soo iibiyay mid kale aan hadda iibsaday haddana aan ku socdaa tan waa alxamdulillah waxaan ka helay waxay tahay ilaahay ma hadii shaqo maanta waxaan helay awooddeed aan ku soo bandhigi karo aan shaqaale ahayn dan wax xadidan inaan laysiin laakiin ani aan go'aamin karo bishaan dhaqaalaha isoo galayo oo noqdo mid ani aan go'aamin karo sidoo kale waxaan faa'iido kale waxay tahay maanta asxaab fara badan jirto shaqada ani aan ku soo cazumay oo maanta ayagana si lamid ah qaarkoodna gawaari rajaynaya ku wada guuleystaan noloshaan sarfaa garay qaarkood iska daa team aniga mid qaarkood ayagana nolol ay ka dhisteen reer ay ka dhisteen labaana badan ay ka sameysteen aad ma saageedna Nicim Maxamed Xalane marka ugu horeysa intaadan shirkadda tennis ku soo biiray maxaa qaban jirtay walaal aad baad u mahadsan tahay aniga tennis ka hor waxaan ahay qof ardaya shaqooyin waan qaban jiray laakiin mostly waxay ahayn shaqooyin volunteer oo bilaasha hadda darajada tennis ka gaadhay waa darajada
walaal tianis waxaan ka shaqeynayaa sanad iyo 6 bilood waxaan ahay darajada bronze lion loo yaqaano oo aan waxaan maanta kamid ahay dadka global shareka tianis kule waxaan ka sameeyay tianis ku jiray in ka badan $20,000 2 bilood ka hor waxaan qaatay gaari jooga $15,000 soo shirkadu waxay bixisaa awards bay bixisaa dalxiis ay bixisaa gawaari ay bixisaa nicmaha shirkada waxaan ka qaatay waxay anigiis igu abaal marisay markay shaqada badan aan qabtay laba dalxiis oo ah Jeen iyo Spain asif maan aadin laakiin waqtiga aan doonayo naadi karaa iminka gaariga aan ku socdaa shirkadu keminiga aan ingiriisi waad mahadsantahay walaal jaaniska aad siisay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay Tianis company ay bixiso opportunity aad u qaaliya dhammaantoodna ay ka shaqeysan karaan because of that anu waxaan ahay Tianis markaan ku soo biiray arday ka soo qalin jabiyay secondary school u sii hadaafay jaamacad laakiin maanta anigoon lagu imtixaamin jaamacad ma soo dhameystay idan la weydiin age-kayga ayadoon la weydiin qabyaaladii wax kale ayaa Tianis waxa laga siiyay opportunity ay siiyaan saxaabta qaaliga xaqan la fadhiso maanta aan ka bedelay noloshayda aan capacity u leeyahay inaan maanta anigu reerkayga iyo family-gayga aan wax u qaban karo iminkana darajada aan ka joogo waa bronze waxaan ku jiraa sanad iyo 6 bilood intaas oo dhaqaalaha aan ku abuuray dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideysan karaan fursadan ay iska daayaan tahriibka iyo meel wareegga iyo dawarsiga aad baan kugu hambaleynayaa walaal cali aadan guuleed intaadan ku soo birin shirkadda caalamiga ah ee Tianis adigu ka hor maxaa qaban jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim intaan ku soo birin kambanigan waxaan qaban jiray shaqo aan cid kalena wax uga awoodin anigana aan ugu filayn shaqo aanan islahayn haddii qof ii yimaado maanta oo aniga wax iga soo codsado ama aan isla waxbuu kaaga baahan yahay aan nixi jiray kambaniga markaan ku soo biirnay alxamdulillaah waxaan gaaray inaan naftaydana wax u qabto ummad kaloo fada badan aan fursad u siiyo inay noloshooda wax ka bedelaan marka kambaniga aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dadka soo abaabulay cali aadan hadda darajada aad ka gaadhay tennis waa darajada hadda waxaan ku jiraa darajada 8aad bishan hadda ulaayd may bisha dambe ayaan rajaynaa inaan global share ka galo waxa xaqan qof walba uu halgama waxa waa inuu global share ka galo si uu u helo dhaqaale xorriyadeed iyo waqti xorriyadeed si uu u helo xaqaas ayaa loo wada halgama